السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا لهي قالقة ميل كستو أجوكتين سو دوادا ومركل فيديو كال أو عصب مركو رانكو صلينو نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سو دوادا ولا لهي شرفت لي ما أنت وحانو ذا قصة أنا يقول عذي on rabo inaad sabarka ka baratiin farajka ilaahayna wuu imaanaa hadduu soo daaha xataa wuu imaanaa inaad sabarka ka baratiin sida aniga usoo samray oo mushkiladeyda aan ugu soo samray iyo guushii aan ka gaaray iyo siduu ilaahay garabka ii siiyey marka waxaan rabaa qisadan aniga igu dhacday in aad ka qaadatiin cashar dadka walaalahayga oo dhibaataysan maalinne يعني maalintii rabta ha ahaato inuu farajka imaanayo farajka ilaahay inuu imaanayo khayrna helaysiin haddii caafimaad aad rabtid caafimaad aad helaysid haddii awlaad la-aan ku haysa aad helaysid haddii muxuu ahaay xanuun ku hayo aad caafimaadaysid haddii wax la-aan aad tahay wax aad helaysid insha allah marka waxaan rabaa intaan qisadeyda idiin gudagalin ka hor walaalahan tale soo siiya walaalahan dartood ayaan qisadeyda aniga usoo qaatay qisadeydii sabarka iyo muxuu ahay dadaalka iyo alla bariga iyo wixii markaas i haystay iyo sidii ay ku dambeeyeen ayaga dartooda maanta usoo qaatay inaan soo qaato waa rabay hadda ka hor waa kasoo sheekeeyey laakiin markaas dad badan iguma xirnayn marka walaalahana waxaan rabaa in ay muxuu ahay kuwaana qaataan kuwaana qaataa ma aha dad waansan waaye dad waaweyn waaye laakiin waxaan rabaa sida anigaba dhib usoo maray oo ilaahay faraj iigu furay ayagana dhib kasta oo maanta haysto inuu berri faraj helayaan sabarkana wuu fiican yahay marka waxaan rabaa walaalaha inaad usoo duceysiin wixii adinkana aad ra'yi u haysiin aad kusoo biirisiin haddii adinkana saasoo kale imtixaano aa soo marteen oo ilaahay guul idin gaarsiiyeyna in aa uga soo sheekaysiin nala soo wadaagtiin si ayagana ay u sabraan insha allah biidnillahi alkariim xataa marka adiga aad dhib ku jirtid laakiin rabbigaada aa ku kalsoon tahay ood og tahay maalin uun inuu faraj imaan doono xanuun kastoo ku hayo iyo dhib kastoo ku hayo waxaa tahay qof dareemayso inuu ilaahay garabkeeda ku jiro oo dareemayso waxaan inuu maalin ilaahay qaadin doono farxadaan dareemay dhib kasta oo ku hayo waxaa dareemaysaa inuu ilaahay garab ku siinayo uu muxuu ahay sidaas kugu fiirsanaynin dabcan waa markaad duceysatid oo istighfaarsatid markaas yani markaasaad dareemaysaa inuu dhibkaaga ama dadaalkaaga inuusan dayacmaynin farajkan imaanayo gabadhan hore waxaa la dhahaa shukri asxaabta igu xiran waaye mar walba i daawato shukri horta ayadeeda dhimatay maalin hore ila soo wadaagtay inaa kasoo hadlana waa iloobay markasto oo usoo tacsiyay walaashay oo dhaho ayeyda allah u naxariisto qabrigeeda allah u qaboojiyo martii la jecel yahay ilaahay ha ka dhigo qabrigeeda ilaahay ha u iftiiniyo insha allah biidnillahi alkariim su-aashana ilaahay ha u fududeeyo inta muslim ah oo dhimataybo insha allah biidnillahi alkariim samir iyo iimaan allah idinka siiyo sidoo waxay naga dalbatay waxay dhahday abaayo macaanto qur-aanka kariimka barashadiis ayaa igu culus waana caajisanahay muraadna waan leeyahay asxaabtaada ha ii soo duceeyaan si niyad ah insha allah qur-aanka oo dhan in ilaahay ha i baro insha allah ina caafiyo aamiin muraadkayga aan macsi lahayn ilaahay ha i waafajiyo allahuma aamiin yaa rabbi khayr badan allah ha ku siiyo aamiin shukran xabiibta adina khayr badan allah ku siiyo qofka xiga waxa waaye waa walaalkeen axmed nuur daleel ayaa ugu qoran gmailkiisa waxaa la dhahaa wuxuu dhahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum walaashay magacayga waa axmed maxamed sabriye waan xanuunsanahay xaas iyo owlaad midna malihi iisoo duceeya ayuu dhahay walaalkeen wuu xanuunsan yahay xaas iyo owlaadna malahan haloo soo duceeyo inuu ilaahay xaas barakaysan oo garabkiisa noqoto owlaad barakaysan ilaahay kala siiyo uu helo walaalkeen caafimaad uu ilaahay siiyo adduunyadan inaa kali ku ahaatid ma fiicno qof weyn dabcan haddii qof guur gaaray aad tahay waxaa fiican lamaane ku anfaco oo garabkaaga galo oo muxuu nolosha kula qaybsado
horumarkaagana jecel inaa heshid way fiicantaa. marka insha allah lamaan nolosha kula qaybsato oo horumar isla gaartiin ku saacido aan ahayn mid nafteeda kaliya oo jecel midaan ahayn oo adigana kaa naxdo oo kuu naxariisato horumarkaadana ka shaqeyso adna horumarkeeda aa ka shaqeysid ilaahay ha ku siiyo insha allah biidnil kariim awlaad kheyr qabtana ilaahay ha ku siiyo oo ku anfacdo anagana noo soo duceey asxaabta oo dhan u soo duceey insha allah ana naftkayga muraadaan leeyahay maanta waa ku jiraa meesha ani ducada waa ku jiraa maanta muraadkaan leeyahayna hadda idiin sheegaa laakiin marka hore walaalaheen aan noo soo dhameeyo walaalkeen axmed marka usoo duceeyo xaas kheyr qabta allah siiyo gabadhan maraam maqribi gabar 5 jir oon hadlaynin ayaa u joogto laakiin waxay tiri kalmadan dhaho iga daba dhahdaa marka adiba mawduucaaga ilmaha hadlaynin maalina video kasoo sameynaya mana soo daahay insha allah commentigaaga dib ayaan u dhigtay kuma iloobin ogow shukrina waa ka hadalnay yaa kale barwaaqo axmed waxay tiri abaayo canab janal kaaga aan ku xiranahay ilaahay ha ku xafdiyo ilaahay dartiis aan ku jeclahay aniga sidoo kale kulligeen waa idin jeclahay kheyr allah idin siiyo meel kasta aad joogtiin markii aan saas leeyahay waxa amasa bii qabow in la igu shubay waxaana jira dad isoo muxuu ahay idhahay maxaa meesha u fadhisaa iyo ma shaqaysatid iyo dadkaan kale laakiin markaan arko waa ilooba ani aslan sideeda dhag jalq ma u siiyo hadii cayl la soo qoro iyo hadii la soo qorin iyo hadii la dhaho wajigaaga foolxuma u xiratay aan waa isku kalsoonahay hadafna waa leeyahay ina walaalahayga wax kala faa'iidin inta usoo fadhiistay marka ani ma kala jeceli hadaa soo qortiin laakiin waxaan ka xumaada waxay tahay in aad miisaankaaga lagu saarayo sayi'aad ana aan ajirkaaga aan qaadanayo bas taasan ka naxaaba ani taas bas leen ka naxaa marka adi energy dadka ku caacay lahayd muxuu ahay dantaada uga fikir horumar ku gaar ku shaqeyso kalimad fiican oo miisaankaaga kuu fusho inaad ka shaqeysid inaad dhexdada fiican dadka haddii kalentan aadan iska aamustid haddaa baqiil aad tahay oo kalimad fiican aadan awoodin waxaa fiican inaad iska aamustid si miisaankaaga hoos uusan ugu dhicin sayi-aad dartiis bas marka ani wax kastoo la idhaho dad waxaa joogo oo maasha allah aan ku iloobay hadalkooda teeda kale aan qof kale jecel ma ihi waxaa leen ka naxaa inuu aad miisaanka ku fulay sayi-aad bas dar ilaahay aan ku jeclahay abaayo qaali marka abaayo dhibaato aa iga haysato ninkayga waa nin xun marka abaayo hadda furiin aan ka dalbaday in ilaahay in uu ilaahay iga soo qaado ilaahay ii soo barya jazakallah kheyr ayay dhahday xabiibta aan horta wax isfuraay waa necba wax isfuraay guri dudumaayo uma jecli ma fahamtay dadka qaarkoodna waa aragtay oo igu xiran inay guur raadinayaan gabdhaha qaarkood dhahayaan muxuu ahay guurka iga soo daahay wiilkii hadda walaalkeen aan kasoo hadlayay oo kaleenta xataa dhahay xaas ma lihi marka abay dadka guri iyo reer way raadiyaan reer lama dudumiyo maalin walbana nin guurso ama maalin walbana naag cusub guurso waa laga fiican yahay haddii nin rag aad tahay maalin walba naag cusub guursatid ama maalin walba nin cusub aad guursatid ma fiicno waxaana fiican in laysku sabro waxaa fiican haddii aad isfahmi weyseen in aad fursad siisid ood kala maqnaatiin maalmo oo adigan aad soo fikirtid asagan uu soo fikiro talow ma ka maarantaa ninkan ama talow ma ka maarantaa naagtan haddii aad iska furtid yani nolosha ama hadhowdii kaligaa yani dabcan iskaabulnomaa loo noqonaa iyo in guri kale hadan la dhiso haddii muxuu ahay maanta reer dhisan aad tihiin ka fikira dudumintiisa reer kale sida lagu dhiso way adag tahay haddii mushkiladiina ay xalismaysa isxaliya dadka anaga nala soo wadaaga mushkiladooda ani asxaabteyda waa la xalinaa marka waxaan ku dhihi lahay adigana fursad qaado asagana fursad ha qaato qof walbana ha isku dayo waxyaaba uu ku xun yahay haddaydan kala maarmin inaa iska badashiin oo isku tanaasushiin si gurigiin uu dhisnaado haddii ay tahay waxaas aad isku khilaafaysiin oo mashaakilka idiin horseedaayo wax iska sahlan oo basiid ahna hadday tahayne inaa isku tanaasushiin si uu gurigiin u dumin oo waxyaabaha qaarkood oo sahalka ah
اسكو قابنينا يعني اسكو حسابنينا واسكو صبرتين واسكو نحريستين way fiican tahay hadii calaf ila isku leedihiin ilaahay gurigiina idin barakeeyo hadii calafkaaga meel kale ka qoran yahayna ilaahay baa og aniga ma ogi sidoo kale ilaahay ku fududeeyo laakiin waxaan ku dhihi lahay ka fiirso reer dudumintiisa sahal ma ahan hadii waxyaabaha uu ku xun yahay waxyaabaha uu ku fiican yahay waxyaabaha uu ku fiican yahay hadii badan tahayna iska haysaninkaaga dad waxa jir waxyaabaha ay ku xun yihiin badan waxyaabaha ay ku fiican yihiin yar oo la iska haysto dadkii talada isoo weydiiyay intaas ay ku ekaayeen qofkii aan ka tagayna macna male uu ila soo xiriiri karaa mar labaad laakiin waxa jirto Sahra Cabdulle oo xanuunsan oo tiri walaalaha ii soo duceeyaan asxaabta kugu xiran inuu ilaahay caafimaad isiiyo iyo Khadiija Maxamed oo tiri muraad ayaan leeyahay asxaabtaada inuu ilaahay muraadkayga ii sahlo ha ii soo duceeyaan iyo Xafsa Ibrahim Xuseen oo tiri muraad ayaan leeyahay sidoo kale asxaabtaada ha ii soo duceeyaan inuu ilaahay muraadkayga ii sahlo asxaabay horta waa duceystaa ducooyin ayaa jiro irsaaqada fududeeyo oo aan dadka soo dhageystay dhahayaan ducadan markii aan aqriyay irsaaqadii ayaa ii furfurmatay hadda ducadan oo kale shaashadan soo saaraya ka sawiro Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwaak irsaaqadii fududeysaa shaashada ka qaado insha Allah si aad u xafdisidna codkay iskaga soo ceshay macna malahan Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwaak ku soo celceli waa fiican tahay iyo qofkii awlaadiisa iyo gurigiisa in ilaahay u barakeeyo rabo ka badan ilaahay in uu siiyo rabo waa ducadan iyadana way fiican tahay dad badan oo ka hadlaya arkay sheekhi badan oo ka hadlaya arkay waxa waaye oo dad baroobeeyeen xataa waxa jiro ay ku duceysteen laakiin muraadkooda heleen Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani يعني إله أولادي يمالك إيبادي أنت أسيسين إيباركي واي إن شاء الله إنه إلهي إذين باركي ما أنت مكرفون كسانة أو هستا كور إيبارن وأود وضاء مركب أقان عدكي سوق سويدن كسو قاري دونو مركب ولا عليه ما أنت أنسو أروري أنت أي هايين مركب حاربا قصدا أنا يقول عضي إنا إذين كغشيكي أنا قبل يدير مركي اللي يقول علي أي حالي يقولوا بالصوف suuf ayaa wuxuu ku jira calooshayda sanad iyo 9 bilood gabadha horta markii aan la igu qalay oo 40kii aan ka baxay aan habeen anoo iska jiifo aan waxa arkay in calooshayda wax weyn ku jiraan markii dhinac aan ka soo riixo mesela waxaan ka soo riixay dhinac midig wuxuu u soo cararayaa dhinac bidix waxaan ka soo riixayaa bidix wuxuu u soo cararayaa dhinac midig wuxuu ahay wax aan meel haysanin oo marba dhinac u socdo oo calooshayda dhex yaalo yaan la cabsanay dadka oo qalin ku dhalay cabsanin caadi waaye dad maqas looga dhex tagayaa jirto ani suufeed adinka ilaahay ma idin tusiyo horto oo dhaqaatiir wanaagsan Allah idinku aadiyo markaan arkay kadib isbitaal aadisaan bilown ani odagayga maalin isbitaal san u tageynay isbitaalku ka sii weyn yahay oo ka qaalisan yahay dhakhtar walba wuxuu sheegayaa wuxuu asaga rabo mid wuxuu ku leeyahay eerna waaye mid wuxuu ku leeyahay buro waaye mid wuxuu ku leeyahay waxaan naagaha oo qaliinka ku dhalay ka soo baxdaa wuuna ka baabaa laakiin wax baabo ay mu jeedi ani habeen kasto markii ilmaha iyo odayga seexdaan waxaan bilaabaa oohin iyo alla bari maxaa yeelay dhaqaatiirtii way sheegi waayeen waxa ani markaas caloosheeda ku jiro habeen kasto ilaahu waxaan dhahaa waxaan caloosheeda ku jiro oon u jeedin waxa ay yihiin xanuun iguma hayso tabcan magac u yeel ilaahayow waxay yihiin magac u yeel ilaahayow waxa aan qabo waxaas iyo waxaasa qabtaa la iga soo sheego maxaa yeelay qof walba waxay iga sheegtaa marka saa ilaahay u baryaay oo waqtiga waliba jawiga degan yahay oo layga seexseexdo ilaahay iskaga baryaay oo kaligay aan ooynaay maxaa yeelay caloosheeda wax ku jira ani wax weyn ku jiro mana aqaani 2 kiilo igu jirto bas gabadheeda markay 6 bilood gaartay oo intaasna isbuuc kas isbitaal aan aadno dhakhtarkii markii aan
computer lay saaray wuxuu dhahay eerna sideeda meesha caloosha ay kaga taalo kama dhaqaaqdo burana meesha caloosha kaga taalo ama jismiga meesha kaga taalo kama dhaqaaqdo laakiin aan wax dhaqaaqa igu jiro dhaqaatiirta qaarkood inay waxba aqoonin ku sheega laakiin qaar wanaagsan way jiraan laakiin qofkii ilaahay waafajinayo waay markay 6 bilood gabadheeda ahayd waxaa la dhahay dhakhtarku wuxuu dhahay waxa way eerno waa ka qalaa waa saxiixay odagayga saxiixay odagay markuu saxiixay macna waxba hadda saxiixin ani gabadheedu way yartahay 6 bilood ay jirtaa way garguuranaysaa markaas ay fadhiga baratay yacni xoogaa ilmaha 5 bilood fadhiga ku bartaan iyo 4 bilood iyo barmeelahaas garguurasho xataa si fiican ma garguurato marka waxaan dhahay marka iyadana qaliinaan ku dhalay gabar ka sii horeysana qaliinaan ku dhalay waxba kala ma weyna qaliin saddexdaad dadaan galo ilmaha haday yar yihiin muxuu ahay marka aad soo dhaqdhaqaysto kale waa la qaadaa marka ma qaadi kari waxaan meesha iiga jiraan wax xudunta korkeeda meesha alqal raba marka waxaan dhahay gabadhan hal sano ha ii gaarto lugaheeda dhulka ha ii qabtaan markaan usoo qabaynayo ama usoo dhaqayo kale xataa waxaan dhihi karaa horkac laakiin cunug la qaaday anuu ii jooga camaliye ma geli kari qaliin ma geli kari marka waxaan dhahay lugaheeda dhulka ha ii qabtaano haddaa saxiixda hadda waa ka baxay dheh 6 bilood ay jirta hal sano ha ii gaarto marka wuxuu dhahay gabar yar noo joogta hadda oo 6 bilood jirto hal sano ha gaarto markaas kadib ayaan usoo noqonaynaa qaliinka insha Allah laakiin halaas aniga bariid ilaahay ma dhaafo habeen iyo maalin ninkaas idhahayo waa eerna waa ka khala kuma qanacsani abadan ma ku qanacsani inay eerni ahaynin waa ogahay inaan u noqdo xataa aniga niyad maba ku haysto maba ku hay niyada ninkaas inaan u noqdo wali waxaan raadinayaa waxaan horta waxay yihiin ilaahay habeen kasta waxaan weydiistaa waxay yihiin inuu ii soo cadeeyo inaan ogaado saa habeen kasta ilaahay u baryay oo isbuuc kastaba dhakhtar u aaday oo dacwadeeda ilaahay ugu sheeganay maalin walba maalintii daboolaha isbitaal iska caadi oo yaryarow oo xaafada ku dhex yaalo maalin casar odagay wuxuu dhahay halkan horta iska aadnay iska soo fiirnaynaay muxuu naga qaadanaa kan wax badan ma qaadanayo u fiirsayaa kuwii lacagta badan aan ka dhiibayo waa sheegi waayeen wuxuu dhahay kan wax ma qaadanayo waa iska soo fiirnaynaa nakeen kiyaan tagay computer ay dhakhtaradii saartay waxay dhahday wallaahi waxaa u malaynaa in lagugu iloobo faashad laakiin ma ii caddo weli dhakhtarka weyn oo guud u gal gudaha isla isbitaalka le waaye kaas u tag raajaha kuu diro asa u tagay dhahda asagu u sheeg asagaan u tagnay wuxuu ii diray raajo hadan isbitaalka dhexdiisa waaye wuxuu dhahay warqaduna siiyey wuxuu dhahay meesha raajada tag adi almuhiim way iska sayn dhaqaatiirtay meeshaan tagay raajada la isaaray warqadiyaan soo qaadnay raajada waa taqaanid kafiiraha laga saari jiray dadka lafaha jaban iyo waa u keenay wuxuu yiri waxa kugu jira umaynaa suuf laakiin wuxuu yiri noqo hadane marka maanta oo meeshaan ku noqdaa waa laakiin isla isbitaalkii marba dhinaca ii jeediyaa oo la iga sawiraa marka u dambeynta wuxuu dhahay suuf ayaa kugu jiro asagiyaa naxay asagii dhakhtarkii ayaa isku naxay balkii igu iloob maxaa u maleynay maxaa yeelay qofkii igu iloobay waa muxuu ahay horta diyadeeda waa laga qaada ku inkastoo aniga walaalkay iga weyn khayr Allah siiyo oo yiri iska cafi ilaa meel kale wax ka siinaayo haddii ka qalayaan ka soo saarayaan wixii kugu jiray sanad iyo 9 bilood waxba uma qabsanin laakiin wuu argagaxay dhakhtarkii markaas iga sheegay yaa ku qalay istaalkay ka qalay ilmaha kugu qalay oo kugu iloobay hadda waa ka soo qalaa waa ka soo saara macna ma lahan waxba ka cabsan asaga jareenoy anigana markaan waxaan bilaabay maadaama aan ogaaday waxa igu jira aan ogaaday oo ilaahay soo cadeeyay marka xaqiiqan aan qaataan raba marka aan waa kibirsana hadda ana marka laakiin dhakhtarkii iga qalayaan tagnay wuxuu u sheegnay wuxuu dhahay wax aluu xarta lagu sameynaa waa naxeen way iga argagaxeen markaas dacwo kasta ku qaadi karay laakiin walaalkay wuxuu dhahay ilaahay ka cabso maadaama sanad iyo 9 bilood aa wareegaysay hadirtaani ilaahay soo cadeeyay wixii kugu jiray halaga qalo halaga soo saaro qof bil aadan dacwaha u qabsanin hortaada u soco inuu ilaahay caafimaad ku siiyo
بس marka sidii la iiga qalay sidii la iiga soo saaray marka waa sanad iyo 9 bilood sahal ma ahan oon sugayay inuu ilaahay faraj ii furo marka farajka sanad u qaada karaa 2 sano qaada karaa 3 sano qaada karaa bil u qaada karaa muxuu ahay hal maalin ka bacdi waxaad heli kartaa farajka qofba ilaahay sidoo ugu fududeeyo marka asxaabteeda sharafta leh dadka gurka ka soo daahay dadka ilmaha ka soo daahay dadka xanuunka ku daahay oo caafimaad ka raadinayo sabra insha Allah farajkane ilaahay ha idin soo dadajiyo sabar lahaada marka aad ilaahay ka baryaysid oo wax ka soo daahan marka marwalba ilaahay ku xiran tahay waxa dareemaysaa inaad ku qanacsan tahay qadarka oo ilaahay saas uusan kugu fiirsaneyn maalin uu faraj ku furi doona dareemaysaa oo sacaado iyo farxad dareemaysaa marka insha Allah ilaahay faraj ha idin furo qof walba meesha ku oomaya ilaahay ka waraabiyo dhibkan Allah idinka dulqaado aniga intaasaan sabraayay ilaahayna ima qadinin oo farajku isoo markii dambe uu isoo daahiriyay waan ogaaday wixii igu jiro hadan waa caafimaad qaba alxamdulillah marka adinkana insha Allah ilaahay faraj ha idin furo fiidiyogan aad iyo aad u dheereeyay intaan fiidiyogan mid lamid ku kulmayno horta subscribe ii saara fiidiyogan like ii saara ina igu soo biirtaan oo asxaabteeda kamid noqotiin sharaf ay ii tahay intaan fiidiyogan mid lamid ku kulmayno waxa idin kaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wassalaam allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mac salaam asxaabta sharafta leh